واسيقارا والسلام يا سلطان كباشة عقاشة سياسيين تيا غويهن كي دلنيرada iyo haweenkaba waxa kale salaamaya marti sharafta iyo madaxda xisbiga wadani iyo saxaafadaba runtii waxaan idinka mahad celinaynaa sida la yaab kale ee maanta gobolka Gabiley ama magaalada Gabiley nagu soo dhaweyseen ee aad noo sharafteen baanu idinka mahadnaqaynaa marka ugu horeysa anigoo ka wakiila madaxda xisbiga marka labaadna anoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan suldaanka iyo haweenka iyo dhalinyarada beesha u cadaynaynaa inaan idinka guddoonay Ismaaciil Daahir Axmed oo xildhibaan u sharaxan golaha deegaanka ee degmo doorashada Gabiley hore waxa uga soo baxay xisbigan xildhibaan Cali Shiine oo hadda xilka ku wareejinaya Ismaaciil anigu reer sheekh baan ahayo Allah u naxariistay jannadii ha geeyo macallin Qaasim baan isku reernahay iyo Shuayb runtii intaanu ka tanaasulin xildhibaannimada marka laga tago beeshan cidda ugu badan oo Shuayb tirsanayay waxa ahayd beeshan inuu ka soo jeedo hal dooro badan baa Soomaaliland ka dhashay beeshan oo Maxamed Saalax yaani ka mid yahay waa beel aad loo garanayo haddaan ahayn beesha ugu fac weyn beelaha Soomaalida sheegta dhamaantood sida la xushay waa beel ballaaran oo Soomaaliland degta dalka aynu jaarkan hay Itoobiya degta waa beesha Soomaalida oo dhan deegaanka u ah caasimadda labaad ee Itoobiya ee Diridhawa واتينا نتوقع كتير أنا قاعد أجمع لان دايرس نص دي صوت الحلبان ما نخصص صارنا ديري دور وعلى ما بيل صار كرت دي صوت الحلبان إننا نشرين وحن إلهي وقرر شيء حلبان كا أدي هذا السوشيال رحدين إن إلهي هو شوفه ذي مركورين إن إلهي قوليه إن إلهي حلكنا وفوضيه وأنه ويارجع ولكن ويارجع نفسه كشيء إنه خبير كوي هاي شغل الدولة ده حاسة ووحيه هذا كسر شقيي وهو شيء ذا قرنيا وضد قبل كورد السعودية مركب وضد كل لعبة أنا إن الشغل ده يسوى شرحان وأنا ضد كأنه كسر إنه إن يسبد الخير قواه أي كيانا وحانو كالسوني بحكو قواه ما دام دي حلبان كي ورا سو صارتين كان لينا سو صار يسان هدي الله يلاه سيدا وحمر جكو كفتمينه واسكول مقعينو اسكول لمايه غرغوريه وداني هدي الله كدغو وحن بقى لو كان ريحانيا لانقاب iyo laab dheer ma jiro horta anigu nin baa ila kaftamay beriyaan gudoomiyaha baarlamaanka noqdayo
nin beeshayada ah dabeedna wuxuu igu yidhi waa sanadkii laangaabka marka kafta kuu iska jiraya wala isriixayaaye ninkii soo baxaa u ballaandheeraa marka guul baa idiin rajaynayaa Somaliland ha noolaato